السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال halkani wadhanbalka dunida ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya Soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxa qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadii ugu badnayd gaar ahaan kuwa haram cad u daabuleysan magaalada Barawe caasimada maamulka Koonfur Galbeed xaaladda siyaasadeed ka dhex qarxday dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed imanka u muuqatay inay isku bedelayso xaalad military barnaamijka ayaa daawadayaal kugu soo gudbin doona sidoo kale waxaan inahaynaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo safar isbiimeen ugu ambabaxaya magaalada Baydhabo lafta garan ee lidka diyaaradaha ku rakibtay garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada Baydhabo waxa sidoo kale aad ku maqli doontaan maleeshiyaadka ugu faraha badnaa oo ku sii qulqulaya magaalada Burxakaba halkaas oo ay uga biirayaan ciidanka badbaadada maamulka Koonfur Galbeed oo kala hore halkaas looga dhawaaqay qodobadaas iyo qodobo kale waxaan ugu soo kordhaa inta barnaamijka wada ku jira daawadayaal kugu soo gudbin doona waa khamiis 19 bisha 3 sanadka 2026 وديار قرب داودي لا قضبة داسية قضبة كلا يدكم مغلي دونتان هدي برالي كنقض وتقضى نقص أدنى فضل هذا كل شيء يوتيوب كان دبالك الدنيا سبسكرايب صار سيدو كان بيج كان دبالك الدنيا سوف لو قريه وديار قرب داودي لا قضبة داسو انت سي كفافا سن وهاجا داودي يلا أنكو هرنا قضبة كوجو هرية برامج كنا فلقيت ورك مجلة Barawe caasimada maamulka Koonfur Galbeed waxa iminka la soo warinayay ku soo qulqulayeen ciidamo fara badan gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed si gaar ah waxa dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ugu daabuleysay ciidanka haram cad waxaana dawladda ay doonaysaa in halkaas ay guud ahaan gacanta ay ku dhigto isla markaana ay kala wareegto maamulka Koonfur Galbeed oo iminka khilaaf xooggan u kala dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda markaan inuu qaatay in xaalada military ama uu doonayo markaan in awood military ku noqoniyo maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale inta la shaqeysaba waxaana uu go'aansaday inuu guud ahaanba deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed uu ku daabulay ciidamo fara badan kuwaas oo si toos ah kaga amar qaatay filla Soomaaliya iyagoona markaasi doonayeen halkaas ay ku xaqiijiyeen amniga iyo sidoo kale kala dambeynta dadweynaha reer Koonfur Galbeed ee ku dhaqan deegaanadaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana horay وصحيح دستوركي Soomaaliya oo labada gole baarlamaanka Soomaaliya ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen waxa dastuurkaasi uu qorayaa in dalka laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo taas ka duulaya ayaa iminka u muuqda inaysan wax kale u muuqan oo uu doonaya inuu guud ahaanba dalka ku qabto doorashooyin qof iyo cod ah waxaana meelaha ugu daran uu doonayo ka hirgeliya kamid ah degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed ee ugu horeysa magaalada Barawe sidoo kale iyo deegaanka fara badan hoostaga magaalada Burxakaba oo maayii ugu dambeeyay baa qalalaasi xooggan ay ka taagnaayeen ciidamo fara badan iyo maleeshiyaad halkaas ay ku sii qulqulayeen waxaana magaalada Barawe caasimada maamulka Koonfur Galbeed iminka si xooggan ugu soo qulqulaya ciidamada kala duwan iyo militariga dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo doonaya in guud ahaanba ay gacanta ku dhigaan isla markaana ay kala wareegaan maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka ah kaga arqaata madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maalintii shalay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Baydhabo ku sheegay in la doonayo in guud ahaanba meeshaas la dhaafiyo waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay inuu dalka doonayo inuu mideeyo isla markaana uu kala qaybinayo Lafta Gareen oo si toos ugu tiqtiiqsaday isla markaana hadal xanaf leh u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaana markaas ka dalbaday dadweynaha reer Koonfur Galbeed in si weyn ay isku garab taagaan dawladooda isla markaana ay isku meel uga soo wada jeestaan duulaan uu ku sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo qaaday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed xaaladda siyaasadeed ee iminka ka dhex oogan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa marba markii ka dambeeyay cirka isku sii shareeraya waxaana iminka ay u muuqataa in ay maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaateen nidaamka dhinaca military isku noqonay iyo xoog ayadoona iminka dawladda ay u muuqato in qaabkii Axmed Madoobe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland loo tacaamulay ama markaana in Koonfur Galbeed lagu dayo hase yeeshee dadka siyaasadda Soomaaliya si weyn ugu dhuun dalay isla markaana falanqeeya waxa ay ku tilmaamayaan in Lafta Gareen iyo Axmed Madoobe ay isku mid ahayn Axmed Madoobe ma jiraan mucaarad ku kacsanaa iyo sidoo kale dadka deegaanadiisana si weyn ay ugu wateen hase yeeshee Lafta Gareen ayaa la soo warinayaa in asaga mooyaan cid kale ay ka soo horjeedaan mucaarado fara badan ayuu wajahayaa gudaha magaalada Baydhabo ayaa laga kacsan yahay deegaano fara badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed maleeshiyada ayaa ka kacay oo la magac baxay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale waxa jira dadweynaha fara badan oo ayuuna si weyn kaga soo
horjeeday xabad xukunkiisa iyo dhaqankiisa waxaana ku tilmaameen inuu meesha madaxtooyadii koonfur galbeed ka dhigtay xarun ganacsi oo dadkiisa iyo qoysaskiisa kaliya uu ku wareejiyay hase yeeshee dadka reer koonfur galbeed aysan waxba kaga ogeyn taas oo ay jirto ayaa haddana dowladda federaalka Soomaaliya ay khilaaf xooggan kala dhex qarxay taas oo muujinaysa ama mugdiba geli karta madaxweynaha lafta gareen iyo sidoo kale xukunkiisa siyaasadeed isagoo muddo 8 sano soo horfadhiya dadka reer koonfur galbeed waxaana inta badan siyaasiyiinta ka soo horjeeda ama ay ku tilmaameen in guryahooda aysan tagin intaas siyaasiyiin ama intaas uu lafta gareen u hayay xilka ay soo guryahooda tagin maantana ay tahay xilligii laga dulqaadi lahaa dadka reer koonfur galbeed waxa ay ku tilmaameen in nin afduuban yahay maamulka koonfur galbeed isla markaana siyaasadiisa ay noqotay mid ku kooban hal qoys wahagaaga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa la soo warinayaa inuu safar isbiimayna ugu ambabixi doono magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed waxaana tani ay timid iyadoo la filayo in dhawaan halkaas ay gaaraan wasiiro fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la soo warinayaa in ciidamada midowga Afrika ee ku sugan magaalada Baydhabo ay la wareegi doonaan ammaanka gudoomiyaha madaxweyne lafta gareen asagoo qudhisa kama sharyareysto oo lidka diyaaradaha ayuuba ku rakibtay garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo halkaas oo ku sheegay cid alle cid ka soo degta inuu dhulka la sibi doono xaalad siyaasadeed ee iminka ka dhex oogay dowladda federaalka Soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaa cirkaas ku sii shareeraysa markaana waxay u muuqataa in la isku dhila dhaansaday isla markaana nimbanka kale uu doonayo markaas inuu tijaabiyo وهاجد وديال برمكان هذا إنه مجال الدبر حكبها ميليشيات فربضان أو مركز الدون هنا وكون بين عيدا كبد ده مالك كفر قلبه وأي وجود بيجي بكسر مقضي مجال الدبر حكبها معمول كفر قلبه جارهان قبل كباي أيها وح إنك ورك صبح يشيء يعني ميليشيات فربضان هالكاس يكسر قلقلة يعني يجوا الدون هنا هالكاس يوقف بيران عيدا كي بدأ معمول كفر قلبه وأي وجود بيجي بأي وجود بهن تكسر مقنا إسلام كان داركم مريء إن يحكم كلا في الدون إسلام كان أقول ما يدوران أنا نفتكر إن يحكم كسيولي بعيد ما ده سدجار كأمر قاتنا ay cagta mari doonaan waxyaalaha lafta garan la doonay in laga guuleysto ayaa kamid ah in ciidamadaasi lagu hubeeyo waxaana marka dambe soo taraya maleeshiyaadka dheeraadka ee ku biiraya ciidanka badbaadada maamulka koonfur galbeed wixii warada ku soo kordha wadayaal halkan ayaad ka heli doontaan fadlan ku YouTube-ka Dambaalka Dunida subscribe oo san Dambaalka Dunida page-keena sidoo kale soo follow garee wadaahir abshir xasan oo inay sidaas iyo nabadgelyo